kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal waa muuse xoshow isu soo noqod wanaagsan muddo internetku naga ciladaysnaa kadib daawadayaal dib waxaan u bilaabaynaa wararkeenii ciyaaraha oo qaybtan youtube muuse xoshow aad kala soconayseen sidoo kale waxaan idinka codsanaynaa daawadayaal in aad subscribe-ka iyo shareta noogu dhufataan haddii aynu eegno wararka wargeysyada iyo suuqa kale iibsiga waxyaabaha laga qoray Manchester United waxay tixgelinaysaa in dooqyada saddexaad ee weerarka ay ka dhigto weeraryahanka Liam Dalab Vini Jr oo wadahadal heshiis kordhina kula jira kooxda Real Madrid walow qandaraaskaasi dhaqaale ahaan uu aad u hooseeyo. Manchester City waxa ay ku waalanaysaa in xidig qadka dhexe ay kooxda kusoo darto weliba iyada oo ciyaartoy dhexa dhowr ciyaartoy kasoo qaadatay. Aynu ku bilown kooxda Manchester United la yiraahdo waxay tixgelinaysaa in ay dooqyada saddexaad ee weerarka ka dhigto ciyaaryahanka kooxda Ipswich Town ninka lagu magacaabo Liam Dalab ee Ingiriiskana u dhashay 21 jirkan ayaa kooxdu ay doonaysaa inuu noqdo dooqooda saddexaad haddii ay ku hongoobaan inay la saxiixdaan Sporting kala Portuguese weeraryahankeeda reer Sweden Vito Gyökeres oo 26 jir ah iyo Napoli weeraryahankeeda waddanka Nigeria kasoo jeeda Victor Osimhen oo 26 sano jir ah kaasoo hadda amaah kula jira kooxda Galatasaray ee waddanka Turkiga Give Me Sport ayaa warinaya kooxda Manchester City ayaa waxa ay xiiseynaysaa in ay soo xoojiso qadkeeda dhexe weli xilli ciyaartoy dhowr ah ay kooxdani dhowanahan heshiisya la soo kala saxiixatay haba ahaadaan difaac dhex iyo weerar intaba Manchester City hadda waxay xiiseynaysaa 25 jirka kooxda Atlanta iyo waddanka Brazil ee qadka dhexe Ederson sida wargeyska Fejejis ee dalka Spain uu wariyay Brazil weeraryahankeeda Vini Jr oo 24 sano jir ah waxa uu wadahadal kula jira Real Madrid si uu qandaraaska kooxda ugu kordhiyo kooxdu kuma aanay guuleysan in ay laacibka weli ku qanciso mushaaraadka uu qaadan doono Relevo oo waddanka Spain ayaa wariyay Borussia Dortmund 20 jirkeeda reer England ee garabka ka ciyaara Jamie Gittens ninka la yiraahdo waxa uu bartilmaameed u yahay kooxaha Liverpool Manchester United iyo Chelsea kooxdu waxay sheegtay inay iska iibin doonto xidigan haddii aanay u soo bixin tartanka Champions League sanad ciyaareedka dambe Cup Offside ayaa wariyay kooxda Crystal Palace iyo Ingiriiska xidigooda qadka dhexe ee daayarka Adam Wharton oo 21 jir ah Southampton xidigeeda qadka dhexe ee Tyler Dublin la yiraahdo 18 jir ah ayaa ah bartilmaameedyada rasmiga ah ee kooxda Tottenham ay doonayso inay ku buuxiso qadkeeda dhexe oo culeysaad xoog leh kooxdu ay ka wajahayso kooxda Everton waxay u dhaqaaqday weeraryahan kooxda West Bromwich Albion ka tirsan oo 22 jir Ingiriiska u dhashay Tom Phillips waxaana ay doonaysaa in suuqa June ilaa iyo July ay kusoo qaadato Football Insider ayaa sidaas warinaya Tottenham waxa ay tixgelin doontaa Ange Postecoglou tababaraha la yiraahdo mustaqbalkiisa haddii uu kooxda sii joogayo iyo haddii kale marka kooxdu ay garaacdo kooxda Aston Villa ciyaarta FA Cup-ka oo toddobaadkan ay wada ciyaarayaan haddiise ay guul daraysato ama ay ka adkaan weydo kooxda Aston Villa waxaa mustaqbalkiisu uu noqon doonaa mid haadan ka raaraca isagaas ayaa ugu dambeeyey wararkii dhinaca wargeysyada iyo suuqa kala iibsiga iyo waxyaabihii ay ka qoreen muuse xoshow ayaa idinla socodsiinaya daawadayaal subscribe-ka noogu dhufta qaybteena youtube waanad ku mahadsantihiin la socodkan